dowladda iyo shacabka dalka Talyaaniga ayaa waxa soo food saaray cabsi iyo walaac xoog leh oo ka dhashay khatarta cudurka coronavirus uu ku hayo dalkaasi. Waxaa lagu soo waramayaa in tirada kiisaska coronavirus ay sii kordhayso gudaha Talyaaniga gaar ahaan gobolada dhaca waqooyiga dalkaas. Kiisaska ilaa iyo hadda laga diiwaangeliyay gudaha Talyaaniga ayaa gaaraya 79 qof waxaana jira muwaadiniin u dhashay dalkaas oo u geeriyooday caabuqa coronavirus. dowladda Talyaaniga ayaa ku dadaalaysa sidii loo xakameyn lahaa xanuunkaas oo cabsi weyn ku haya dunida oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo wax looga qabanayo halista coronavirus ee dalkiisa waxaana heegan iyo karantiil adag la geliyay 10 magaalo oo ku yaala waqooyiga dalkaas iyada oo dadka la faray in aysan ka soo bixin guryahooda. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ay mamnuuc tahay in la galo ama laga soo baxo magaalooyinka cudurku ka jiro ee la karantiilay oo ay ku nool yihiin ilaa 50,000 oo qof. Talyaaniga oo dhan waxaa la joojiyay dhaqdhaqaaqyada iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida garoomada cayaaraha iyo meelaha la midka ah ee dadku isugu yimaadaan waxaana la joojiyay cayaaro kubadda cagta ah oo dhici lahaa maanta. madaxda Talyaanigu waxa ay sheegtay in cabsi weyn ka qabaan in halista cudurku ay dhaaftay xilligii go'doominta taasina ay adkeynayso in la xakameeyo. coronavirus oo sanadkii tagay ee 2009 ka bilowday dalka Shiinaha ayaa hadda gaaray 26 dal oo ku kala yaala qaaradaha dunida taasoo keentay in dalalka ka baxsan Shiinaha oo dhan laga diiwaangeliyo 1400 oo kiis iyo 12 dhimasho. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee Shiinaha waxa ay sheegeen in Sabtidii ay hoos u dhacday tirada dhimashada iyo dadka uu soo ridanaya caabuqaasi. ku dhawaad 76,400 oo kiis oo ay ku jiraan 2,348 dhimasho ah ayaa laga diiwaangeliyay guud ahaan dalka Shiinaha. Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa ka walacsan tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi ee kala jooga caalamka oo dhan. madaxa WHO waxa uu sheegay in walaaca ugu daran xilligan uu yahay in cudurku gaaro dalalka uu liito adeegga caafimaad ee ka jira sida kuwa qaaradda Afrika. Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijisay in dalkeeda lagu diiwaangeliyay tirada ugu badan ee uu soo rita coronavirus marka laga reebo dalka Shiinaha. dunida oo dhan ayaa waxaa ku sii badanaya walaaca laga qabo halista coronavirus oo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii badanayso tirada dadka uu soo ridanayo.